بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوداyaasha qiimaha iyo qadarinta mudan soo dhawaada haddaad ku cusub tahay YouTube kanaalkan Magan Maxamed subscribe saar waad mahadsan tahay. maanta hadaba waxaanu ku hadli doonaa waxaanu isbarbar dhigi doonaa labadii heesood ee bilihii ugu dambeeyay YouTube ka haystay meelo badan la soo dhigdhigay yani labadii heesood ee saameynta ugu badnaa bilihii ugu dambeeyay ku lahaa barta YouTube ka labada heesood hadaba maxay yihiin waa iska garanaysan qofka soo garanaya qofkii day la socda ama YouTube ka ku xiran uu garanaya waa heesta la dhaho unsi uu qaado Didinachi iyo heesta la dhaho waa kare uu qaado Lil Balil. labadan heesood hadaba maxay ku kala saameynta badnaayeen heesta la dhaho unsi maxay ku horeysay ama ay kaga fiicneed heesta waa kare la dhaho heesta waa kare la dhahana maxay kaga fiicneed ama ay kaga horeysay heesta la dhaho unsi. inkastoo labada heesood ahaayeen laba heesood oo saameyn aad u weyn ku leh barta YouTube ka bariga hore Soomaalida waxa la arki jiray hal hees oo saameyn ku yeelatay YouTube ka sidii sanadii dhawaad heestii loo dhig jiray barbar waxa ka sii horeeyay heeso badan oo saameyn leh din heestii loo dhig jiray heeso kali ah oo saameyn ku yeeshay YouTube ka la arki jiray balse bilahan dambe waxa soo baxday in laba heesood si isku mid ah saameyn uga dhax yeeshaan barta YouTube ka taasina waxay sababtay dad badan in isbarbar dhigaan bal mid kasta gaar ahaanteed u qiimeeyaan labada heesood ee ah unsi iyo waa kare. horta marka hore waxaanu ku bilaabaynaa waxyaabaha ay midba kale kaga fiican tahay. waa kare maxay kaga fiican tahay unsi ama maxay kaga wanaagsan tahay ama maxay kaga magac leedahay ama maxay dadku ku qiimeeyeen badanka. horta waa kare heesta la dhaho waxay hees ilaa rabadaantii la xayisiinay xayisiisyadeedu aad u badnaa xayisiiskeeda aad u badnaa sidoo kale waa kare waxay kaga fiican tahay heesta unsi waa heesta kaliya ee Soomaali ugu horeysay ee la iibiyo yani marka la iibiyo waxaan uga jeedaa heesaha waxa jira website lagu iibiyo ee heesaha la soo galiyo caalamka ma jirto hees marka la qaado YouTube la iska soo galiyo balse fanaanku intaanu heesta YouTube ka soo galin lacag buu ka sameeyaa oo wuxuu soo galiyaa website iibiya website-daas dadka macaamiishiisa ama dadka taageerayaashiisu galaan oo heesta ka soo iibsadaan kadib heestu markay iibsanto ilaa 7 ku jirto website-ka ayaa YouTube ka la soo dhigaa. heesahaas waa heesaha international-ka ama caalamiga ah balse heesta waa kare la dhaho heesta kaliya Soomaaliyeed ee habka caalamiga ah raacday oo wad ogeedeen website waa la soo galiyay waa la iibiyay waliba website-dada iibiya heesaha waxay sameeyaan qiimeyn toddobaadka heesaha la soo galiyo kaalimo kala duwan ama heesta ugu iibsiga badan heesta labaad ee ugu iibsiga badan heesta saddexaad ee ugu iibsiga badan kaalmay kala galaan heesuhu. waa kare waxay noqotay heestii ugu horeysay Soomaaliyeed ee la iibiyo sidoo kale waxay kaalinta shanaad waa kaalin aad u wanaagsan kaalinta shanaad ayay ka soo gashay heesta ugu iibka badan yani waxay heestii shanaad ee lagu iibsiga badnaa ma sha Allah. marka waxaan oran doonaa taasi waa sabab ay kaga fiican tahay waa kare heesta unsi. hadaba waxyaabaha kale kaga fiican tahay waa kare unsi waxa weeye heesta waa kare la dhaho muuqaalkeeda waxa loo duubay hab caalami ah ama hab aanay Soomaali wali u duubin heeso oo waad aragteen actionka iyo meesha lagu duubay iyo sida loo duubay iyo wali fanaanku actionadu sameynaya ma aha wax Soomaali hore lagu arkay taasina waa waxyaabo ay kaga fiicnaan karto unsi. hadaba heesta unsi la dhahaa maxay iyadu kaga fiican tahay heesta waa kare la dhaho. horta heesta unsi la dhaho ma lahayn wax xayisiisa waa kare muddo bil ah ayaa la sii xayisiinayay oo qaybo kamid ah heesta meelaha la soo gelinay. horta hadaba unsi waxay iyadu scoorka ku dhigtay iyadu ma lahayn wax xayisiis ah wax la sii hordhaca ma lahayn hal habeen ayaa la soo galiyay YouTube ka halkii habeen ay saameyn yeelatay. sidoo kale unsi waxyaabaha kaga saameynta badnayd ama kaga fiicneyd waa kare waxa kamid ah viewskeeda labada heesood waxa dambeeyay soo saaritaankeeda heesta la dhaho unsi oo waa kare way ka horeysay dhowr cisho ayay ka horeysay ama isbuuc meel ayay ka horeysay isbuuc markii taalay waa kare YouTube ka ayaa unsi la soo galiyay balse imika hadaad eegto labadii heesood viewska kala haystaan waxa badan heesta la dhaho unsi oo gaadhay imika siimana 500 oo kun oo views iyadoo muddo week ka taalay heesta waa kare la dhahona iyadu 300 oo kun
300,000 meelahaas ay maraysaa taasina waa waxyaabo amazing ama cajiib ah oo ay uunsi kaga horeyso waa kale waa hees bilaa xayeysiisa hal habeen la soo galiyay haddana viewskeedu maanta inta marayo balse waa kale ay ka views yartay taana waxaynu sababayn karnaa waa kale iyadu YouTube ka hore looma soo galin oo hore waxa loo soo galiyay website-ka yaani dadka website-ka kala digay heesta inta badan YouTube ka daawamayaan sababtaasna waa sabab aan oran karo waxay hoos u dhigtay viewska waa kale haddaba labada heesood labada fanaanay kala qaada fanaanka Didi Naji la dhaho waa fanaan raabista oo heeso badan oo raaba qaada hadda daawataan hadii kalaba hees la dhaho ya Korea oo Soomaaliya bari doorashadii farmaajo ku guuleysanayay uu qaaday sidoo kale Lil Balil isagoo fanaan raabista oo muddo aad u badan ku soo jiray raabka oo waxaan garanay ilaa 2013 2014 heeso uu soo saaray YouTube-kood ka heli kartaa oo waa nin raabka muddo aad u badan oo 10 sano gaaraysa hadaan ka yarayn in ku soo guda jiray haddaba labada heesood midahooda iyo laxankooda iyo qaabka loo duubay iyo action-kooda ayaynu hadda faala ka bixinayna waxaanu yara dhageysan doonaa in yar heesta la dhaho uunsi kadib waxaanu sidoo kale u gudbinaa heesta la dhaho waa kale kadib idinka qiimeyn doona aniguna waa idin la qiimeyn doona labada heesood meelaha ay ku kala fiican yihiin hadda waxaanu bilaabaynaa reaction-kii ama falcelintii aynu ka bixinaynay labada heesood aynu isbarbar dhiginay oo ah waa kale iyo uunsi waxaanu ku horeysiin doonaa heesta uunsi bismillaah صبحت أنسي ما يشديدو أكو أنسنها حاسيتو سو قلينا برتا أيكو جرتو هسرنه أنسي كالي أنسي كو آوي بلو نو بلو Didi Naji أجمل معي فنان Didi Naji صدرتاني ذكر شد عقاقة شد انا وذا شد في عني فوحة شد في رشكو شد فديكو شد انا وذا شد عرفي وحش اذا اضيق كشدا شقر هذا الشقد انا ما شغشري انا موقعين شور نشد سما يشددو وقوم مثلها روحة ما يشددو افهم يستلها سما يشددو intaasaynu ku joojinaa heesta la dhaho uunsi horta heesta habeen baa la wada duubay wax maalin kuma jirto sidoo kale waxaan filayaa goob baara in lagu dhax duubay heesta muuqaalkeedu aad buu fiican yahay heesta iyo muuqaalku isla yihiin sidoo kale actionadu bixinayo fanaanku iyo heestu aad isku leeyihiin gabadha jilaaga ka ah heestuna jaaskeeda ama qaabka ay u dheelayso iyo heestuna aad bay isla haysataa waa hees aan wax dhaliila lahayn baan filayaa balse erayadeeda ayaa ah qaar yarka kan oo aan hore loo fahmayn dad badanna ay ku dawaqeen inay fahmaan heesta uunsi erayadeeda marka inta waxaanu kaga imananaa heesta uunsi waxaynu u gudbi doonaa heesta waa kale la dhaho adiga tii kula macaanaata waa qaadan kartaa inkastoo aniga labada heesoodba ay toog ila yihiin bal aynu u gudubno heesta waa kalena
waan kufay waan dhacay markaad baxday mala iiga dambeyn haddaba labada heesood heestana wallaahi muuqaalkeeda anu marka labada heesood qiimeeyo heestii hore heestana ka muuqaal qurux badan qaabka loo duubay iyo edit kala mariyay iyo meesha lagu duubay heestana aad u shidan waa kare way ka muuqaal qurux badan tahay heesta la dhaho unsi markaan anigu ra'yigayga ama fikirkayga sidoo kale labada fanaan actionaday bixinayaan waxa ka action badan ama actionkiisu ka yara firfircoon yahay leel baliil saad aragteenba waa kare markuu leeyahay sidoo kale eriya ahaan heestan eriyadeeda aad baa loo fahmayaa inkastoo heestan luqado badan iskugu jirto Soomaali Sawaaxili iyo English balse qaybta Soomaaliga haddaad Soomaali tahay Soomaaliga garanayso aad baad u fahmaysaa oo intii imka Soomaaliga heed waa ereyaro macaan oo qurux badan oo la fahmi karo markaynu labada heesood kala qiimeeyno muuqaal ahaan waxa shidan waa kare iyo erey ahaanba waxa shidan waa kare unsi laakiin laxankeeda la gaadhin unsi laxan aad u macaan ayaa la saaray sidoo kale fanaanka labada fanaan aniga ahaan waxay la cod macaan diidinaaji waayo cod yar oo khafiifa oo saafiya oo qurux badan oo aan Soomaaliba la moodeen ayuu leeyahay aad baad u mahadsantihiin daawashada fiidiyogan intaasaynu kaga imanaynaa isbarbardhigii iyo ka falcelintii labadii heesood ee weygagii ugu dambeeyay haysay YouTube-ka haddii aad nagu cusub tahay walaal qaali fadlan subscribe noo saar channelka wax dhiba kuguma aha wax kalifaada ma aha waa kaliya one taabasho weeye af Soomaaliyan one taabasho weeye marka halka taabashaha nagala baqaylin waad aragtaa haddii aad ka heshay fiidiyogana like saar haddii uu ku cajabiyay waxaad la wadaagi kartaa asxaabtaada waad mahadsantihiin dhammaantiin maalin wanaagsan